kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mid ka mid ah waraysiyada aan ku qaadano dalka Koonfur Afrika wuxuuna qayb ka yahay barnaamijka bandhiga Universal TV wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxa maanta marti igu ah barnaamijka Abwaan Seraar oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika marka hore ku soo dhaw TV-ga Universal Abwaane aad baan ugu dhawahay TV-ga Universal iyo Idris aad baad u mahadsantihiin way farxad inaan waxa weey barnaamijkan halkan ku qaban hadii la yiraahdo marka koowaad magacaaga oo saddexan taariikh nololeedkaada bal inoo dulmar magacayga oo saddexan waxa la yiraahdaa Cabdulqaadir Yuusuf Maxamed Seraar waxaan dhashay abaarihii 9-maadkii waxaan ku dhashay degmo la yiraahdo xarfa la yiraahdo hoos timaada gobolka Mudug suugaanteeda waxaan bilaabay 2011 meelahaas ayaan bilaabay waxa weeye aad baan u mahadsantahay su'aasha taasi waxay ahayd horbac taariikhdaada nololeed ee halkii aad ku dhalatay iyo xilliga aad bilowday suugaanta maxaa kugu dhaliyay in aad suugaantan bilowdo niyo waxa weeye runtii wax aan hadeer garan karo igu dhaliyay kulleeyday waxyaalaha isdiidan baa igu dhaliyay sida caadiga runtii waxa qof walba xoogaa hal abuur uu iska yahay qof walba hibo uu leeyahay oo gaar ah u jida marka anigu waan isku arkay deetana waxa weeye inaan banaanka u saaro baan isku day ma dhaxal ay arintan tahay oo familkaaga aabaha abwaan ah ma adeerka sidee bay ku heshay hidahan dhaqanka Soomaaliyeed inaad wax ka tiriso bal inoo dulmar niyo wax oo ehelkayga oo gabiya ma jiraan aniga ugu horeeya runtiina de kulay aniga waxa weeye mataqaana hibadaas iska helay okay abwaane waxaad ka mid tahay abwaanada Soomaaliyeed ee tixda tiriya ama gabayada tiriya ma jiraan wax aad ugu talagashay dadka Soomaaliyeed oo aad kula hadlaysay way jiraan kuwa badan baa jira maanta waxa weeye Soomaalida aan aad uga hadlayo waxay ka hadlaysaa Soomaaliya sinaan qaata waxay ka hadlaysaa Soomaalidu inay is ogolaato in waxa weeye cadawga iyo waxa weeye aan ku qanacno dhulkan haysano iyo sidoo uu wanaagsan yahay waxa weeye gaalada waxna siinaysa ee waxa weeye inaan waxa weeye aan siday rabaan aan u sameyn xaajadu samaan dhaaftay sulux iyo hanaan diiday suudiga la wada seexay sunta haraga siibaysa saamali la soo qooday saldhigaalka ruuxii shuufa iyo sami ku daanshoodka wuxuu sugaasin dadabtiisa subax uu sahwiyi doono saacadaha gudoonkooda subax uu ku dagi doono Soomaaliya samaan qaata silic iyo rafaad diida sunta lagugu sayraayo saldhigeedu waa suudi iyo siin ku soli doonta Soomaaliya sinaan qaata sida iyo sideer dhaafa xariir dugaalkeeda sakhmi iyo sawaabkiisa ana saxan ku salalkeeda Soomaaliya ka guurmaanta Soomaaliya isgaarsiiya gaalada ha sooriyeen nacabkana ha soo qaadin soonaha dhulkeenana Soomaaliya ha kala saarin wada joog sooriyeynta Soomaaliya ciideynin Soomaaliya wax soo saarka sabadiyo dhulkan joogna beeraha ku saameelan dalagan sariigmeenin qudradiyo saliid toos ah dunidan wax suureeyo sadka ee bixin siiyay Soomaaliya ma soo jeedo Soomaaliya kalluun saafan badda wada sabaynaya sumsumaya xeebteena cambarkiyo sadko buuxa marka aan ku sari weyno cadawga ka saameelan Soomaaliya bal soo fiiri soofkiyo xoolaha foofa sidigtiyo marqaha geela caanaha sibraar buuxa Soomaaliya dhulka asaas ah gunguma ka soo joog ah siyaasiga nafduulaanka aqliga ka soo bood ah sandareerta qooqaaran gumaystaha ku siinaya wuxuu raba samee maaha wuxuu gudo ku soo ruweeyay wuxuu gala ka saar maaha wuxuu yahay sidoo doono samir oo ku raac maaha dhalinteena suuqooday tacliintana ka seegtay suudimaha ku kala awdan alla ilaahay sida doonto sid bursi xaqood maaha salfudeedka qaarkiisa samadu ku geeyay marka hore 9 weeye tiradana 6 baasaan ah adigoon hanfada sayrin dhinacyada ka soo joogsa hadba xagal ka suulsuuli aqligaagu suu faagmay hadba sibiqa soo daayo damqashada jirkayga uqso samirkan huwanayo go sarka dhaba xilkayga kac aqligan sasabayo fal xeebtaan sirgaxanaysi sahankan dirsaday oo xaq nafta sikima ooyday gam sacsac igu bulaalow faq sanbacaan u jeedo hog dirir ugu salidanay ah xuma la sursuurayo dan salab leeyla dhacayo xad socod la igu falayo han himilada sirtayda ay dal fakar igu fogaado sax mabda la dul sarayo deg xumna la iga siibo garyacay la igu hilayo sid sibiq dalkayga god sancadaa wax doono fig hammin la iga siibo heedhe mar baan ku siin faalo sugulkiya madowgayga mar baan ku helin saami
afrikada su'aasheeda mar un baan jawaab siinin inaan ahay sursuro owdan inaan ahay sitaac beermay inaan ahay sagsaag hoolmay mar un baan saniin geynin soomaalay sinaan qaata sida iyo sideer dhaafa saxariir dugaalkeeda sakhmi iyo sawaabkiisa anaa saxan kusalalkeeda soomaalay ka guurmaanta waan gartay taasi waxaad kula hadlaysay Soomaalida guud ahaan ma jiraan tix kale oo aad la hadashay dhalinyarada ama wacyigelin ama guubaaba ah oo ka tarjumaysa waaqiciga dhalinyarada Soomaaliyeed anigu tix baa jidha aan ugu talagalay shakhsi lagu dhiirigelinayo shakhsigaas kulli waa dhalinyarada waxaan jeclahay marka maasooyinkayga kuwa aan ugu jeclahay bay ku jidhaa waa ugu tusaale iyo waxa weeye wax la mid ah waxay leedahay hubi taraha moogaaga si kastood u tiictiicdo mar un baa tariigaaga shidan shumaca taagtaada tamartiya halbeegaaga taladiya waxsheegaaga si kastoo laguu tuunsho ha ka tegin oraahdaada tusmadiya wanaagaaga ha is odhan tubaa teer ah ha isdhihin mid baa taag leh ha u odhan tijaar weeye wax kastoo tibaaxayso ku sintooshka moolkiisa tafta qaba tacliintaada caqligaagu waa taam xaajada la kala tuuray ha ka tegin adoon taagin afka hooyo taash saaro la tacaal sarbeebtiisa tunka saar ujeedkaaga wax kastoo ku soo taabta ha ka baqan tiraabtaada tafantoof isqaadqaadka ha ku tegin aftaaglaynta sankuneefla taag waaye dunidana ku tabarbeelay nolol iyo tigaad doon ah erey uu ku tegi waaye ha u odhan anaa teedan tirtir haarta guumowday ka nacniyada turidwaaga islaamnimadu waa tiir ku dadaal taqwada eebbe inta inanta xaashaysa toolmoon ifkaan saaran tamashlaha dhaqaaqaysa garaaraha tontoomaysan hadba dhinac u tuuraysa qurux badan tariig nuuro tima dheer haldhaa suuban ha u xiran qardhaas tuur leh ha ku odhan tiraab feexle ha ku tuman xaquuqdeeda turuq iyo awooddaada ha ku bixin tashuushkeeda tashka dhooban laabtaada tuhunkiiyo iswaawaaga qalbigiiyo waxtabintiisa wahankaa tasow sheega tafaraaruq kaa oogan tulud iyo haddaa siiso 19 geel ah wax u dhigan tasbiix eebbe ma jiraan tanaad khayre ha ka tegin taqwada eebbe isku arag tab iyo xeelle isku fahantan iyo xoog leh dadku waa taf iyo caaqi adu taada meelayso tacadiga dadkeer haysta dadkaan la isku wada tuujay dadkaan la isku wada taagay halamsiga dalkaan tuugto tuqantuqa ku maalayso tacadiga afkaar quusle hasku habin tiraabtiisa tamartiya awooddaada bandhig oo faraha taago tisbaa gelin awooddaada madaxana ciraatiinban uga jira talbay liicin inta taagan waaxdaada farbay tukub awoodaysan inta xoogga kugu teedan ta fikra dul iyo ciidda tagtadiya waxsheegeeda nafta ha uga taag waayin timaadada rabbaa keenin maantaad adigu taallo yaysan taladu kaa dhuuman nafta talaxtag ugu muuji turuq iyo lixaadkeeda sanka yaan lagaga tulin xaajo taqajumin ku geedaysan sida toojo iyo geela khasab yaan wax loo tooxin kolna yaysan taag waayin tawaawaca hiraan hiirin kolna yaysan taageerin kuwa tifaya ruugeeda tabashada wax loo geysay yay ciil la tegi waayin tawaawaca jibaadkeeda yay cadow u tiiraano cagtu yay tilaabooyin hanka taa ka dheeraanin diilimaha talowgaaga maskaxdaa u tala roone taageer qofnimadaada lumiddaa 90 jeer ah taariikhda duugeeda tan u wacan halbeegeeda adigoon tunkiya feedha matalaa tigtigin qoorta dheegoo taswiirtaada udub iyo ka dhiga tiirka dhanna ha uga tegin xeerka isirkiiyo ku faantaada martiyaad u noqontiisa 10 hala markuu sheego iyo tooq xunoo faan ah adiguna sidii tiixa ugu hoori taariikhda maansadu tagtoo reentay qof tigtigan awood siisay tagugadu qof ay haaday dhaqdhaqaaq ku taageertay toobiyaha habeen gaadhay qalbiyada tacaal diiday tira u heensaysay qof hurdada ku taahaya ilashada kabtiisa ah socoshada ku tuuriyeysay howdiya ayaantoona noqoshada tijaar diiday tabaruca qof iimoobay xilashada u taagnaatay abwaane waxaad dhalinyarada kula hadashay tix sidoo kale wadanka ayaa la hadashay ma jiraan wax aad ka tiraysa siyaasadda Soomaaliya isdiidan oo hoga tusaaleen u ah dadka siyaasiyiinta ama hoggaanka Soomaaliyeed way jidhaa maase la yiraahdo waxa weeye maan iyo bareer qofku inuu caqligiisa wax ku garto maasadan waxay leedahay maan iyo bareer maskax yahay bulaal maansadu dhag bay dhex maquuratay caqli iyo mushaax masafadu garbay muhashada gasho maangaab hurday marmarsiyo gubtee magac yahu istaag manfac yahu dhawaaq milil yahu dukaan muruq yahu dhaqaaq sharci yahu muqay qof kastoo ku mara miir yahu israaf ku macaash harquun magan looga tagay waa magac xume suuqyada madow yay muunad li'i muuqaal wanaag kugu soo markicin malab yahu shinida macmacaanka badan waa lagu murmee gambi oo macnee ma qor yahu bikaa ubax yahu masbaasheeda kaa maree mayac u diqow maawiyow hawaash maridkaa jigjiga inuu miigag rabo mari oo u sheeg mindi yahay dawee
micin yahay af beel afku kuma martay dibna yahu macaash moorada dad baa magac uga baxee suugaan maldaha miinkan ka owd waxaan ahay mas'uul masalooyin dagan mahmaad dakhree mawjado xirxiran hubi oo mashxarad intaasoo masalo baga muusatee isa suran macnee muruq iyo adimo muran soo dhex maray misna waax quroo keligeed mutaxan kaga yaal miskaha sida muushin baas loogu soo marmaro kaalayo macnee xildhibaan mukaah musuq oo xujaah maro oo xagaah sida mudan haddaa magalooti baas miirlaawo daran maatada qarriba muudmuudsadaha meel daran fantaha maaldaadsadaha danta muuqsadaha majaraha hayaa macangaga dantii aan maaminayn sida looga maro maansoy balsheeg oday muunad loo marfisyada fadhiya maslaxyada ku falan mahadhooyin sida maalaha bugsaday laba mida ka dhaha muuneeyo daran qaab maamulnimo isku soo mutaxa meherada ka dhigay maxastaan dayacan inuu mool u qodo meel daran u dhigo sida looga maro maraq looga xiro maansoy balsheeg muuqbaahiyaha murandooriyaha warar muujiyaha maandooriyaha been maamulaha muuqaal dadbaha codka muunada leh milga fuuqsadaha hadba meel qabsada wariyaha maska ah maansoy balsheeg dhalinyaro mucsira muruq oo maraqa dhalinyaro maluhu meel dheer ka jiro dhalinyaro mirkaca dalka meel ka tegay dhalinyaro magafa miirtoo daldalay dhalinyaro mirtii maskaxdooda dilay dhalinyaro madow meyd oo socdaa dhalinyaro maqaar meel looga xiray dhalinyaro markaad fiiriso mugdiya dhalinyaro madow sida maayo jaan looga soo muldhiyo maansoy balsheeg waa meel daweys waa madal istaag waa moorasheeg waa muhashabooy waa xoog magliga waa camal mitida waa marag aftahan maal oo qalbiga madax u gee muudso caqliga meelee in badan kaasi wuxuu ahaa abwaan cabdiqaadir yuusuf seeraar oo igala qaybgelayay barnaamijka bandhiga Universal TV wuxuuna tix ku muujinayay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya waan kaga mahadcelinayaa abwaan seeraar waqtigaaga